استوي jirtaa laakiin iska garaac maaha shardi baa ku xiran intaan guda galin waxaan rabaa inaan wax ka dhaho doodaas waa mide quraanka ma ahan wax sida doonto aad u fasiran karto tan xigto aayad quraanka ku jirto hadaad inkirto oo aad ka hor imaato diinka bax bay noqonaysaa wuxuu alla yiri wama yajhadu bi ayatina illa al-kafirun kama hor imaado aayadkeena qof aan kaafir ahayn macnaha kaafiriintu bicaado u tahay qofka uu khaldami karaa waxa laga yaabaa ayada inuusan aqoonin marka oo in la hubsada oo gaal baa tahay aan lala hor ordin xadiis bukhari ku jiro nabi sallallahu alayhi wasallam waxa laga soo wariyay inuu yiri ida qala rajul hadininku uu ku yiraahdo li akhihi walaalki ya kaafir yani gaalo ama hebel waa gaal hadii uu yiraahdo faqad ba'a bihi ahaduhuma yani midkood bay ku soo noqonaysaa gaalnimadaas la sheegay yani meel aadi mayse mid kamid ah qabsanaysaa dumarka aan kamid ka ahay diinta xuquuq oo ma maqno oo meeshaas loogu soo gabanaayo sababtoo ah waa la ogyahay diinta horteed dhibaatooyinka haystay iyo sida ilaahay uu xuquuqdooda meel u saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xadiis badan ooga hadlay ooga dardaarmay rifqan lil khawaarir sidaas daraadeed hadii gabadha adiga aad qabto diinta islaamka way ku dulminaysaa xuquuq kuma lihid waa iimaan la'aan iyo nasiib darre Allah naga nabadgeliyo alla rag iyo dumarka ma kala jeclo kaliya siday u kala amal wanaagsan yihiin bay ugu kala dhow yihiin in akramakum indallahi atqaakum sidoo kale nolosha adduunyada way kala sareeyaan oo midba meel buu ku fiican yahay oo asaga lagu sareeyay hooyada iyo aabaha kale hooyada xaq weyn 3 jeer soo dumar ma ah yaa siiyay xuquuqda intaas la eg ilaahay waa siiyay sidaas la mid ah ragga meelaha qaar baa ayaga dheeraad lagu siiyay ama lagu sareeyay الرجال قوامون على النساء محل ليهي يعني رجع أي كفي عن مامولده على النساء دمرك يرجع هل اسم مامول مركي تكتو رجع كفي عن مامولك ده إلهي وسذا متك حكم كأدتي رالي بان كنا هاي سببتو أهونا كلي يقانا هذا دمرنا هاي وان حنتم بدنا هاي بما فضل الله بعضهم على بعض يعني إلهي با سيدا أكل ديريسي يعني رجي با لفضلي أو إراد لسي يعني ولا سريسي وحلقوا شيء مركان سبب تسرينتين تاس وقال كسي تنكوبات وإنيهن قوامون قوة دمر كمام الولاكسن تنلبعنا وبما أنفقوا من أموالهم إني أيويهين قوة حنتظر كوب حناية meel kasta waxa looga baahan yahay maamul wuxuu u baahan yahay in la helo cid laga amar qaato marka ilaahay baa asaga u dooray in uu noqdo midka guriga madaxda ka ah go'aanka u dambeeyana leh hadaad wili qancinaad rabto in si kale wax lagu fahansiiyo sala ninkan markaad guursanaysay kaliya waad heshiiseen laakiin asaga hawlihii oo dhan qabtay reerkeeni ka doonay xoolo kugu bixiyay حتى أديك واحد كل بسنة يسقط قرحين لهاي بحي جوري كود جاي مال مضل أهلا ولا فرديو أيا وحلو جودي بمسؤولية لجويري إلهي باكو سارة أنا جانا مرقعتي عن كان هاي تاسع واحد كوب جرنا يسائن ونين كان مدح كان نقنتون جوري قد اسمعي إن عبارة حدو مركان كسعود مركان وارجع رنتا الإسكوشي جاي نمانكو موض أحق قوامون ninka xilkiisa ka soo bixi waayay malahaanaya sareynta ilaahay wuxuu kugu siiyay waa maamul wanaag iyo inaad adiga noqotaa qofka gurigaas ka fargareenayo wax walba bixinayo hadii labadaas aad gabta ayada qawaamad ah sareysiintaas ilaahay wuxuu kugu siiyay waa labadaas arimood ninkan lahayn shuqul kuma leh gabadha sareynaysa hadii iyadu tahay mid magaaladana ka soo shaqeysato gurigana isku maamusho adigu buuq un hadaad u iimaanayso waxba malihid weyna ku saxantahay inay iska ka dhiciso oo ay ku tiraahdo waan simanahay marka mas'uuliyadaha waa la kala leeyahay tan uu ilaahay ku saaray ka soo bax haday ka hor imaata iyada ka khaldan fasalihatu dumarka wanaagsan qaanitaatun waa kuwa la caabuda xaafidaatun ilaaliyo amaanada lil ghaybi marka laga maqan yahay cinaha ninkooda intuusan joogin naftooda way xifdiyaan maalkiisa iyo gurigana way ilaaliyaan bima xafidallahu sidoo alle ayaga xaqooda u ilaaliyay marka waxaan soo gaarnay
واللاتي تخافون هدي أد كعبستان نشوزهن كبركوذا فعذوهن وانية معناها دمرك هدي aad isku dhacdaan waxa la yiri marka hore waaniya hadii waanadaasi ay shaqeyn weydo wahjuruhunna fil madaajic gogosha uga hajira micnaha sariirta isla seexataan oo kale uga kac ama ka durug yani jiifka uga tag baa laga wadaa hadii ay taasi shaqeyn weydo xal lagu waayo wadribuhunna garaaca إلهي بقى أمد عن سميه وذي قانو قفك بالعادة كأنا إنه قردر هذا وحفي عن معها مركز دتك اسكو جرا waxa la yiri waaniya qaar baa waanada wax ku fahma hadii waanada ay diidaan waxa la yiri yani ka aamuso oo gogasha yani uga taga qaarna waxa laga yaabaa inay sidaa wax ku fahmaan qolada u dambeysana waxa la yiri garaaca waxa laga yaabaa qolada inta wax ku soo fahmayno markii la garaaco ay hagaagayaan laakiin garaacista shuruud baa ku xiran inaad dhiig ka keento lama ogolo inaad jibiso lama ogolo xitaa inay bararto lama ogolo meesha aad ku dhufatay culimadu waxay yiraahdaan waa sida inaad mara ku dhufato kale yani hada garbasaar ama shukumaan yar hada qofka sidaas ugu dhufato wax weyn ma gaarsiina inaad u gacan qaadeen oo arkaa waxa laga yaabaa markii inuu isdhaho hadii sheekadan ay gacan qaad gaartay yani way xumaatay bal xaalka daji inuu isdhaho iska dhici kartaa walow qaarkood ay sii darsanayaan wixii dib keenayna lama ogolo oo qofkaas laga yaabo inuu adiga ama ku dhibaateeyo ama dagaalka u weynaado oo aad iswaxyeeleysaan oo qofkii indhaha la ismadoobeeyo faraha la iska garaaco ama la isfuro la isdhaho hadaad ay gacan qaatay oo ku kala tagaynaa wixii wax xumeynaayo waa inuu qofka ka fiirsadaa marka garaacada Muuse ma ahantii aad rabtay inay gabdhaha goomanka la madoobeynayay ee lala booqan jiray garaacista gadaasheed waxaa la yiri fain adaanikum hadday toosaan falaa tabquu calayhinna habanaysanina ama haraadinina sabiila wado aad ku ciqaabtaan macnaha gabadhii hadii ay markaad canaanatay ama aad garaacday oo kale hadday fiicnaato jid ha ka dhiganinoo maalin kasta gabadhaas ha dilin lama ogolo inaad ciqaabtid oo garaacidaas aad wada ka dhigato gabagabadii dooda waxay ku saabsaneyd garaacista ma banaan tahay mise ma banaano way banaan tahay waa aayad quraan ah laakiin laguma khasbana macnaha waajibna ma aha sunnana ma aha waxaa jira quraanka inta badan arimaha uu ka hadlo waxay u kala baxaan wax waajib ah waajibka yani waa sida salaad oo kale salaad hadaad ka tagto cadaab baad leedahay lagaaga tagi maayo waxaa jira wax sunno ah sunnada waa sida yani inaad isniintii khamiista soonto oo kale hadaad soomi weydo lagu qabsan maayo waxaa jirta wax xaraan ah oo la sameyn karin qamrada wax xaraan waxaa jirta wax xalaal ah waxaa jira wax banaan waxan way banaayin hadii lagu dhaamo macnaha ma waxaas waa in la sameeyo laguma khasbano hadda garaacista aan ka hadlayno waa wax banaan laakiin in lagu dhaqmaa qasab ma aha kaliya inay banaan tahay buu quraanka ku sheegay sunno ma aha nabi sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa ma garaaci jirin waajib ma aha oo maxad u garaaci weydo lagu dhihi maayo marka laga hadlaayay ninka inaagtiisa hadii lacala ay isfahmi waayaan xalka koowaad waxa laga dhigay in la waaniyo waliba mid labaad baa jiray midkan saddexaad raga waxay uga dhigaysaa aniga ma aqaano waxaad moodaa inay dumarka ku gardareysanayaan ama ay ku raadinayaan meel ay ka soo galaan waana waxa Ilaahay uu ka digay uu leeyahay falaa tabquu calayhinna sabiila ha ka dhiganina wadacad ku maraan mirsotaan oo dumarka ku dishaan